وقرب على وحان لا قرتي أساك هالكنت مادين dadkii ugu horeeyay todobadii bay ahayd imakana 12 bay ku sii dhowdahay waa codayseen madaxweynihiinni baa soo dhawayseen haddana waa dooranaysaan kelmado kooban baan odhanayaa kelmadahaas waxa weeye doorashada bisha Noofembar 13-keeda maxaa kulmiye ku doonayaa inuu soo noqdo awal biawal wuxuu ku doonayaa todobadii sanadood aynu soo dhaafnay kulmiye dagaal gudaha baa ku socday dagaal mucaarad baa ku socday dagaal xabadeed buu isu bedelay laascaanood baa lagu jaray oo dagaal sokeeya buuraha sanaag baa la galay buuraha golis baa la galay wax walba waa la sameeyey waxaa soo jiray haddana horumar dhaqaale horumar kaabayaal dhaqaale waxqabad ictiraaf raadin waxa la yaalo wax ka habsaamay kulmiye ma jiro imtixaanka ciddii la soo mariyey ee dalkii aan u burburin ee aan la kala yaacin sawir mar labaad lagu soo celiyo maaha sawir mar labaad lagu soo celiyo maaha mucaaradka waxaan leeyahay dadka rajaynaya inay kursiga yimaadaan umaydun shaqaysan todobadii sannadoodba waxaa ka shaqaynayseen xumaan todobadii sannadoodba waxaa ka shaqaynayseen kala fogayn todobadii sannadoodba dagaal baa ku jirteen maanta haddii aad toddobadaas sannadood xukuumadda jirta la shaqaysaan hadal kalaan odhan lahaa waxaan odhan lahaa mucaaradku waa u qalmaa markooda in la doorto laakiin maanta uma qalantaan idinkaa fogeeyey intii waxaynu ku jiray cay iyo cadaab iyo xabad iyo buuro la fuulo sow maaha shacbiga waa codayseen maanta burco waa joognaa bari iyo galbeed looma kala maqna labadii rodol iyo rubciba waa joogaan burco way codaysay waxay soo martay ee dhuhdhuha ee udhadho iyo waxay shubayeen ee faqaha wixiiba sow kamaydu bogsan maasha allah maadaama baxa taagantihiin halkaasaan ku joojinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu